halkan aan ku suganahay waa bartamaha degmada Dhagaxle ee gobolka Faafan ee qaar ka mid ah odayaasha iyo dhalinyarada ayaa wax ka weydiin doona taariikhda iyo sababta uu magaca Dhagaxle ugu baxay sidoo kale waxaan wax ka weydiin doonaa waxyaalaha ay caan ku tahay degmadan Dhagaxle kamid ah moota waan iska fiicanahay taariikhda adduunka intii aan soo gaaray dhulkan waxaan garan soo gaaray oo dadku xor baahay ma soo gaaray moota dadku dhibaataysan yahay oo ninkii sacli inuu ka xeeyo mooyee una aan ka maalayn maanta waxaan soo gaaray ilaahay uu simay dhulkii xor ah ya aan Soomaaliya soo gaaray alxamdulillah rabbil caalamiin Soomaa Dhagaxle waxa ku baxday taariikh ahaan togana dhagax hata ya Dhagaxle moota biisa de fogaaday waxa dhagax kula baxay biiba dad hoos tagay oo hoos loo qodo dhagaxun buu lahaa jiray moota magacayga Cabdinuur Cumar Balayda kamida degmada shacabka Dhagaxle ee Faafan marka waxaan anagu caan ku nahay waa xoolo dhaqato beeraley beeraha hirta la galaa oroma ayaa ka shaqeysa beeraha marka oromadaas wax ka soo saarto ayaa la kala qaybsadaa kadib marka wixii raasmaal la kala qaybsadaa waxa kalena waa deyn bay ku bixiyaan waxa laga shaqeeyaana waa xabuub qaji iyo basal qudaarta kala gedisan ba ka soo baxda marka Faafan biyadu iska dhow yahay nin kasto ka shaqeysan karaa oo dhulka lagu ka shaqeysan karaa ninkan ku lahayna kulay xagga magaaladana wuxuu ka shaqeeyaa gaadiidadan iyo waxaan ay cooshadaha kale marka anagu kulay xagga waxaan nahay miyiga waxaan ka shaqeynaa waxa weeyaan qudaar qaji basal iyo waxaan ka shaqeynaa toon iyo ilaa saytuun ka shaqeynaa garanaysa marka waxyaalo badan ba ka soo baxan garanaysa marka kulay waa xoolo dhaqato beeraleyda ma anagu anigoo kamid ah dadweynaha magaalada Dhagaxle ku dhaqan ama Faafan taariikh nololeedkii magaalada soo martay waxay caan ku tahay oo lagu yaqaanaa togo weyn ee Faafan ayaa loogu magac daray marka waa meel khayraadka dabiiciga ah aad ugu fiican iyo wax soo saarka waxa kale oo caan ku tahay dhanka ganacsiga sida hadda u jeedaan gawaadhidani waa gawaadhi ganacsi inkastoo waqtiyadan dambe hoos u dhaceen laakiin waxay ahayd Faafari magaalo saylada sida Abu Dhabi oo kala oo Harar to Addis Ababa ilaa Tigray goboladooda ilaa iyo Goday looga safray man jiray haday tahay dhanka xoolaha haday tahay dhanka ganacsiga haday tahay dhanka wax soo saarka hadda xababkan meelaha ay la aragtaan oo ka soo go'ay togo Faafan beeraleyda kuwaas oo dadku iskaashtooyin ay sameysteen magacay guuleed Shinniba la dhahaa oo shacabka magaalada Dhagaxle kamid ah marka taariikhda magaaladu beeraha ay hodan ay ku tahay iyo xoolaha dhul dooxo wanaagsan bay leedahay hadii la maal gashado sida khudaarta basasha xabuubka dhammaan ayay qani ay ku tahay marka waxa weeyaan waa qaryada aad iyo aad u wanaagsan oo fiican marka waxa weeyaan